magacay waa Nuurdiin Maxamuud Cabdullaahi oo ka socda iskool Janshaale daayay intay 12 sano jir waxaana ka soo qayb galay koobka lagu magacaabo Galaas Ruud waan ku faraxsanahay. maantana waxaa la sameeyay festivalkii ama dabaaldegii iyo tartankii tournamentiskii oo wareegaha iyagoo sameynayay activities ama waxyaabo kala duwan runtiina aad looga faa'iideystay waxaan leenahay wuxuu ku dhamaaday si guul ah. Just playing for fun, enjoying themselves. Now you see the best young player, you put them in a system, now you start coaching them. And if you have this kind of activity all over Somalia, all over the country, you would see good potential.